بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى أي مال مالمها كمدا وحصو مري سوق مقالة بصرة ومقالة كتال العراق تدكي باكو سو أروري مركاسي وحي ويديين أبو إسحاقو إلهي بان برينا بريدنا نلقما أتشيبه محان نقول دعي markaasuu wuxuu ugu jawaabay qalbiyadiina dhintay waxaana dilay 10 arrimood waxaa la yiri 10ka arrimood ee qalbiyadayada dilay maxay yihiin wuxuu yiri midda koobaad ilaahay baad garateen xaqiisiina maydaan gudanin midda labaad waxaad sheegateen in nabiga sallallahu alayhi wasallam jeceshihiin sunnadiisina waad ka tagteen midda saddexaad quraankaad aqridaan kumana camal fashaan midda afraad nimcooyinka ilaahay baad iska cunaysaan kumana shukridaan midda shanaad waxaad sheegteen shaydaanku inuu yahay cadowgiina waxaad tidhaahdeen shaydaanku waa cadow shaydaankii baad nawaafaqdeen midda lixaad waxaad tidhaahdeen jannadu waa xaq umana shaqaysataan midda toddobaad waxaad sheegteen ama aad tidhaahdeen cadaabka ama naartu waa xaq kamana carartaan midda sideedaad hurdadaad ka soo kacdaan dadka ceebahooda ayaad ku mashquushaan ceebtiinana waad hilmaantaan midda sagaalaad waxaad tidhaahdeen mawdku ama dhimashadu waa xaq umana diyaargarowdaan midda tobnaad kiina dhintay baad aastaan kumana cibro qaadataan waxaad isweydiisaa 10ka arrimood ee Ibraahim ibn Adham uu ka calacalayay oo uu lahaa dadka waxaad baryada iyo ducada leedinka ajiibi laayahay 10kan arrimood baa idinku dhacay ilaahay baan kugu dhaarshay ma ku sugannahay dhammaantood maanta mise kuma sugnin dhammaantood waan ku sugannahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha inaga dhigo kuwii waajibaadka ilaahay u dirsaday guta kana fogaada waxyaaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka xaraantinimeeyay